marka warbixin idinka siiyo xarunta caafimaadka Ceelbo sida u jeedaan xaruntu waxay ka kooban tahay inta dhismaheedu yahay oo hadda shaqaysa waxay ka kooban tahay 3 qol hal barkad iyo 2 suuli bay hadda ka kooban tahay oo shaqeeya magaaladuna waa magaalo aad u weyn oo sida aad aragteen waxa lagu tilmaamaa 3 kilo isku weer inay tahay 3 kilomitir dhinac kasta u tahay population-ka jooga waxa lagu qiyaasaa ilaa 13,000 total population-ka waa magaalo aad u weyn marka waa garan kartaan magaalada inta leeg qiyaasta leeg iyo xarunta caafimaadka inta ay leeg tahay waa xarunta kaliya caafimaadka oo ku taala Ceelbo marka laga reebo farmasiyada bareefadka ah iyo cusbitaalka oo hadda noo socda oo aan insha Allah rajeynayno waqti dhow inuu noo soo gabagabeebo oo lagu wada contribution isku tashi ah maadaama deegaankan uu deegaan balaaran yahay miyi iyo magaalo isbitaalkaas waanu dhagax dhignay tabaruc baanu ku dhagax dhignay dabadeedna waxaanu u qayrinay dadka jaariyada oo Ceelbo ahaan ka soo jeeda iyo wixii muxsiniin oo la baxaya muddo 9 bilood ayaan waxa ku soo ururay lacag $50,000 isla markaana isbitaalkii ayaa lagu bilaabay lacagtaana waxa lagu dhisayaa 6 qol oo hooyada dhalaanka 6 qol oo qaybta maamulka iyo 1 waar oo rag ah suuriyadii iyo barkadii intay iyagu qabteen annana waxay nagu soo celiyeen marka reer Ceelbo ahaan hadaa tihiin waxa la idinka rabaa deyrku waa nagu culus yahay runtii xaqiiqadii laakiin anagu waxba ha karan meeno wixii aanu heli karo waxaan ku tala jiraa inaanu isku tashi aanu ku sameeyno deyrkii oo isku tashi oo wali socda isku tashigii wali ku socdo oo baanu ka soo bilownay magaalada Ceelbo haddana wuu socdaa kana hadda joognaa waxa weeye qaybtii hooyooyinka iyo dhalaanka waxaan hadda dhisnay oo soconaya 3 aqal oo kala ah kan hadda joognaa waxa weeye qaybtii hooyada iyo dhalaanka wuxuu ka kooban yahay 6 qol iyo 2 suuli waxa kaloo jira qaybtii maamulka oo isagana ka kooban 6 qol iyo 2 suuli waxa jira waarkii ragga oo isaguna hadda qaybtan soconaysa ku jira inta hadda soconaysa qabyada inta weeye deyrkii oo isna gaar u socda oo isku tashigii ku socda qayb jiingadii baan saa ka saaray qaybta kalena waa ku socotaa berri iyo saadan bay dhammaan doontaa cusbitaalka shaqada tan guud ahaan waxaan soo gabagabeynaynaa haddii ilaahay idmo saan qiyaasayo inay dhammaato bisha 15-keeda in aan furaha wareejino shaqada hadda anagu aanu wadno baan haddii ilaahay idmo saasaan rajaynaynaa waxaanu aanu codsanaynaa qaybta qabyada aad soo aragteen in la dhameystiro si ay u noqdo MCH xarunta caafimaadka Ceelbo Health Center xarun isu dhameystiran dhinac kasta oo culayska ka jira oo hadda aan markii hore soo sheegay oo kale sida aan u sheegay qolalku way u yar yihiin in dadku uu kala u helo qolal badan oo dadkii baa marar badan aan ugu kala saarno sida hooyinka ANC waxa laga yaabaa hooyo ANC ahayd oo sheegan lahayd pregnancy oo sheegan lahayd xaalad badan oo caafimaad inay jaamka jira awgi ay sheegan weydo oo ay u sheeg weydo gabadhii midwife-ka ahayd ay uga warbixin weydo xaaladeedii marka magaalada sida weyn iyo maalashaas oo yar waxa kale oo intaas si dheer Ceelbo waxay ku fadhidaa baadiye aad ballaaran waxa ku hareeraysan baadiye aad ballaaran waxa kale oo ku hareeraysan ilaa tuulooyin 12 tuulo gaaraya oo tuulooyinkaas oo dhan oo halka ay ka soo doontaan dawada iyo nutrition-ka iyo talaalkaba marka culayska aadka u badan baa jira marka waxaan leenahay isku tashiga aan wadno reer Ceelbo ahaan haday tahay cusbitaalka aan ku wadno iyo xarunta caafimaadka Ceelbo Health Center MCH-ka iyo wax isku tashi badan hore aanu sameynayna waxaan ku boorinayaa dadka reer Ceelbo inay sii kordhiyaan oo arrintaas sii dardargeliyaan oo gudida iyo cid kasta ku hawleena lagala shaqeeyo laysuna tashado kii qurbaha jooga iyo kii gudaha joogaba laysu soo wada jeensado oo isku tashigaas waxaan aaminsanahay inuu ka maarmi karno cid kasta oo aynu ku tiirsanahay haddaynu inagu isu tashano shaqeeyay daliya dibadba dadkii heeganka u ahaa cidii kale oo dareenaysaba waxaan leenahay weli waa halkeedii marka la yiraahdo isku weerkiisa mitiraadka 880 mitir isku weera
waa cusbitaal aada u weyn. waxaan rajaynaynaa cusbitaalkaasi inta uu leegyahay insha allah in la dhiso oo uu noqdo cusbitaalka bariga africa ugu weyn baan rajaynaya halka inaan ka dhisno oo weliba isku tashi lagu dhisay. waxaan rajaynaynaa halkaasi in dadka deegaanka oo deegaankan u dhashay inay samcad weyn ku heli doonaan. dadka wax la buuxo muslimiintana waxaan rajaynaynaa inay wax fiican ku soo darsadaan si ay u noqoto sadaqad jaari ah oo halkaa uga socota. annaguna hadda insha allah waxaan rajaynaynaa dadka deegaanka iyo hadda shaqada kambaniga gacanta ku hayaba nin walba sida uu wax u soo baxsaday in loogu fuliyo.